waayo wuxuu nabigu leeyahay hadday nicmo noqotana wuu sabray wuu ku mahad celinaya shakar hadday noqoto buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dhibaatana wuu sabraya labada goormaro khayr buu helaya buu nabigu leeyahay alayhi salaam qofka muuminkii marka ilaahay ma awood waayina adaa lagu itixaamaya waayo ilaahay muxuu ku tilmaamaya kuwa kale ilaahay wuxuu leeyahay mathalu alladhina ittakhadhu min duni illahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كو إلهي عيد أنا هين هيل يا قرابة نمية تلي قرقار كالدوني با إلهي دي تساله دي مهما هدود وحويان كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وعاردي قري نستوك لبالي قري عارة محو عليها قري عارة وحبا ilaahay qayrkii aad ku tiirsato ama maraykan ku sheeg ama mid kale ku sheeg waa guri caaro in guri caaro ku tiirsan baad ilaahay wuxuu leeyahay cid aniga ay dhinac marta ee ilaahay qayrkii istiraahda cizi iyo xoog iyo ka doona tamar kamathal al-ankabut ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyut labayt al-ankabut ba ilaahay guri waxa uu liita u jilicsan guri caaro ba la leeyahay subhanahu wa ta'ala macna meesha yaala muxuu yahay qofka mu'minka dhannigu ilaahay ka qaba waa inuu fiican yahay sadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala murugoyo idin ku dhicin iyo ducfi iyo liidasho toora mu'min ilaahay ku kalsoon noqo waxaynu u baahanay marka ummadda maanta muslimiinta ee caalamka ku nool waxaad moodaa dad badan inay hami jabeen niyad jabeen xagga muslimiinta lagu dilay xagga muslimiinta lagu dilay المشكلة عندنا أولا إلهي وأوضا وحبا إنه مالن قرأ كعيه لكن إنك الله إنه يتحاميه إنك امتحان كان يحقوك يمي بل أن هل حديث أخرين وكوى النبي كسوان عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام حديث كيس طوبان ورنا يوحوري يوشك الأمم أن تتاعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حديث كانوا فيرسون نبي محمد عليه الصلاة والسلام باوحيري waxa la arki doona ama waxa dhawaan ah waxa dhici doona ummadaha dalaalka iyo baadinimada ku sugan dunida inta isugu keen yeedhaan sida dadka xeedhada leh ay isugu yeedhaan hadii dad casuumadu sameeyo casuumada ugu yeedho marka dadka casuumaysay oo dhan dee waa casuumada adiga lagu sameeyo waana wax fudud inaad maxay qaadato cunto ka dharagto saa doonto u googoosato nabi maxamed baa wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxay ku dhadhowdahay inay umamka dunidu inta isugu kiin yeedhaan tusaalihiinu noqdo sidii xeedhe la wadaagaya midba gacantiisa gelinayo caalamka maanta u fiirso عالم الإسلامي بقى أنت الله يسوق يردي أما ناتدى أما ورصدى أما متكلدى أما طبعا اللي في رد نريد مالك قرن والبرد أنت اللي يسوق ده تجي أي كل واحد يدلي بدلوي بتقول يا كنت أنا عسكري جاية متكبدن جاية بقى ما تقولي بقى أنتوا بابي كرابو بابي وحود على قاطع ولا الله يا ولا بابا ولا قميصة ولا دلا وهو النبي محمد كورمه عليه الصلاة والسلام صحابة دي ويابين مركا وحي maskaxdooda ku soo dhacday talo waxa risay u dhacay ma marbay muslimiintu inta yaraadaan wax yar oo dabeetana la boobo ayay noqon doonaan qaalu wa min qillati nahnu yawma idin oo waxaas ma waxay ku dhacayaan bay ilaahay rasuulkiisa ma intaanu yaraano oo dadka kale bataan ayaa deena nala dafaya markaas xabadna loo qabanaya qaala bal antum yawma idin katiir buu hadana nabigu ma maalintaasi waa badantiin buu nabigu tira yari maaha تركوبك مسلمين ده انت كور لوgu dhawaaqa waa bilyan iyo 300 milyan dad badan waxay qabaan tirakoobkaasi inuu qalad iyo 2 bilyan inaanay ka yarayn laakiin ayan kan bilyan dadka badan oo bini aadama in inta hadana la isugu yeedho
nebigooda kolba mid 5 milyan uu caayo ama mid ka sii liitaa uu boobo ama qaado ama hagardaamaya ama isugu tagaa waa dacfi maxaa keenay saxaabadii way rumaysan kari waayeen waxay dhaaheen miyaanu yarnay meema yaridin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinakum guhaa'un ka guhaa'i sayl buu nebigu yidhi laakiin waxaad tihiin daad xoorta daadku qaado oo kale ma yaridine daadxoorta waxaa la ydhaha xashiishka iyo xumbada iyo waxaan markuu daadku meel jabsade u wado xoorkan iyo xashiishkan iyo uskagan saaran uskagani meel laguma socdo meeshuu iska yaallay wuxuu qabtaa halka daadku qabadsiiyo dad itijaahle matiin meel uma socotaan xagga caalamku isaga socdaa unbaa idana u socotaan daadxoortu halba meel bay ka laabataa meeshuu ka laabtaba uu kala laabanaya shakli ma leh form loo yaqaano male wadadu hadday soo dhuubato xoorku isku soo ururaa meel buu imanaya hadduu daadku kala ballaadho wuu kala baahaya shakli ma leh wasni ma leh miisaan ma leh oo wixii miisaan lagu dagaa dhulku tagaa kuwani xagga sare bay ordayaan daadxoorta xagga sare carartaa idan kaanamaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo cahdi inay iman doonto dadka muslimiinta iyagoo tiro badan leh ay noqon doonaan dad aan qiimo lahayn wasni lahayn afkaar lahayn mabaadi haysan waxba haysan kalbabqa dunidu waxay ku dhawaaqdana kaga daba dhawaaqa xaqii loo dhaqaaqana isaga daba socda qiimo wasniyo caalamiyana aanay ku lahaynba hadday wax sheegaan iyo hadday shiraan iyo hadday aanu midnaba macno samaynaynin su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waa maxay sababtu markaasuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum muslimka dhabtaa waa laga cabsan jiray waayo waxaa loo yaqaana inay yihiin dad tooda ku adag saa daraaddeed bini aadamku hadduu ku og yahay qof wax iska rabi karaa ama wax iska waabin karaa ama mabda leh haddaad tahay warka lagula imanaya war macquula weeyaan oo waa qof lagu xisaabtamay laakiin haddii lagu ogyahay inaad waxba tahay war ama cidiba kuu sheegi maysa waa lagugu wadayaa ama wixii la doona lagaa yeelayaa ولذلك النبي وحيد ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم إلهي وحو قال هذا قلبيده بك صار دونا بقى إذن كينك بقيا مر هدي إذن الله سو هذا القاده اللي قدر دريا عيد كما بقى يسبوا له بقى هو حري هي ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن إذن كان قلبيدينا وهن بادقي دونا بكون بخير وهنبو اللغة العربية وهني حنون بيو يقانين قربك كل والله يقانين وهني وحك الله يقانا ضعفها لما كان اللغة العربية دو يقانين عربي هاي لكن وحي قرن كرواين وحن انتو ضدك كل وهني اللي يدي ضدك بو صاروا نصخبيا محي